kusoo dhawaada qaybta labaad ee isticmaalka Photoshop. Haddaba maanta waxaan baranaynaa sida sawiradii hore ee black white ka ahaa inaan sida looga dhigi karo color. Marka hore sawirka black white ka fur. aan ku soo qaadano sambal ahaan sawirkan waa saaxiibkay. haddaba waxaad taabataa marka aad sawirka kor joogtid. sawirkan waa gray waa black white. waxaad xulataa key xarafka kha ee keyboardka. waxay halkan isku bedelaysaa quick mask adoo ujeeda qoraalkaas. waxaad soo qaadataa brush. waxaad taabataa brush oo dhankan kaga yaala brush. haddii marka qaar ay pencil saaran tahay waa inaad ka dhigato brush. dhibicdaas waa inay brush ku aadanaato. markaad brush xulatay waa inaad sawirka dhammaantiisa meel walba oo jirkiisa ka mid ah ee sawirka waa inaad highlight ku saartid brushka adoo bedelan kara brushka cabirkiisa. right kale ku dheh sawirka cabirka brushkaagana noocaarta ka dhigo. marka waa inaad ka tagtid keliya indhaha iyo ilkaha iyo wixii adiga muhiimka ah ee aan kalarka loogu talagelin. ilaa gacmaha waa inaad kalaraysid. markii aad dhammaysid xeeraareynta sawirka aad kalarka saaraysid waxaad haddana mar labaad taabataa xarafka qa q oo keyboardka ka mid ah. waxaa saarmaya xeeraarahan ilaa waxaa xeeraaruhu uu saarmaya geesaha sawirka. si aad geesaha sawirka uga dhaaftid maadaama aan loo baahnayn geesaha sawirkiina xeeraare ay saarmaan waa inaa haddana aad xulatid control shift I ama E. control shift I waxay ku taalaa keyboardkaaga. controlka high shiftigana daba qabo aydana oo i'da ahna hal mar dhagsi. xeeraarihii kore ee sawirka wuu baabay. waxaa soo haray halihii yare ee muhiimka ah ee aan xulanay sida gacmaha iyo qoorta iyadoo indhaha laga tegay. xeeraaraha saara indhaha waa ujeedaa. marka halkan ku marayso waa inaan bedelno. halkan waxaa ku qoran gray waa inaan ku bedelno RGB color oo ah in sawirka aan ka dhigi karno color. waxaan marka hore aadaynaa image anagoo ka xulanayna mood. kadibna waxaan aadaynaa halkan waxaa ku qoran gray seal waa inaan ka bedelno oo ku bedelno RGB color. marka waxaa halkan ku haysanaa inaan color ka dhigi karno sawirkana hadda aan xeeraaraynay. si aan colorka usii guda galno waa inaan aadno haddana layer oo aan kasii xulano new adjustment layer. kadibna aan ka xulano color balance. halkan aad uga taxadir windowgan yar ee soo baxay waa inaad ka taabatid okay. marka okayda aad taabanay waxaan u baahannahay inaan halkan aan ka xulano highlights oo aad halkanna ka dhigtid 100. halkan waxaa ku qoran 0 waa inay noqoto plus 100 waa plus 100 saa ujeeda. halkan waa inay ahaato plus 25 iyo wixii ka yar ama 26 ama 24 waa qiyaas. sawirka hadda wuxuu isu bedelay marka hore wuxuu ahaa casaan ama gaduud. hadda wuxuu isu bedelay sawir qof jirkiisa oo caadiya sababtoo ah kalarkan waa kalar xul ah waan ku xulanay qofka jirkiisa oo kale. okay minus ayaan sameynaynaa si aan jaale yar ugu darno jirka. minus 10 ayaan ka xulanay halkan. intaa kadib okay baad taabanaysaa. sawirkii wuxuu noqonayaa sawir kalar leh. si fanaanada iyadana aad kalarkeeda u bedeshid waa inaad mar labaad haddana xulatid ereyga q ama qa. mar labaad waa inaad haddana keyboardka ku highlight gelisid dhammaan fanaanada meel walbo ka mid ah. iska hubi inaadan ka tegin meel ka mid a fanaanada si kalar buuxa aad ugu heshid. meel walbo ka mid a dharka waa inaad kalar saartid. markii aad dhamaysid xeeraarahaas kalarka aad saaraysid waa inaad haddana mar labaad aad taabatid xarafka qa si lagugu highlight gareeyo fanaanada gebi ahaanteed. marka haddana waa inaad sidii hore oo kale haddana control shift I aan taabano si keliya fanaanada loo highlight gareeyo. waa inaan haddana ku laabano layer aan ka xulano new adjustment layer. kadibna aan taabano color balance. new adjustment layer waxaa ku xiga color balance. waa kusoo ceshan kartaa videoga haddii aan kaala yar degdegay color balance. sidii oo kale haddana waa inaa okay tahay. haddana ay highlight ama meesha aragto toogtan waa fanaanada un weji maaha. waa inaad kalarka aragtid ka dhigatid. markaa haddii aad buluug u baahan tahay haddii kaleeto kalarka marba waa inaad la raaraasitid kalarka u baahan tahay. haddii midab cagaar ah midabkii markaas aad ka heshid inaad adiga la raadsan kartid. midab buluuga ayaa hadda xulanay ugu dambeyntii. hadda waxaan halkan kusoo gabagabeynay kalareyntii kalar sawir black and white ah. waxaan idin soo gudbiyey warbaahinta Omar Teacher Education Center adoo booqan kara website-keena www.omarteacher.com.